xukuumadda Somaliland ayaa maanta xabsiga ka sii deysay 5 nin oo muddo ku dhow 20 sanadood ku xidhnaa xabsiyada kala duwan ee Somaliland waxaanay ku eedeysnaayeen isla markaana loo xukumay inay ku lug lahaayeen falal isugu jira dil iyo argagixiso. Ragga maanta la sii daayay ayaa waxaa ka mid ahaa Jaamac Kuutiye, Indha Cadeeye Ibrahim Idle iyo 2 nin oo kale. Jaamac Kuutiye oo qaar ka mid ah warbaahintu la kulmeen ayaa waxa uu ka cudur daartay inuu ka hadlo sii deyntiisa isagoo sheegay inuu mar kale u dhigan doono hadalkiisa. Raggan maanta la sii daayay ayaa waxa la xidhay waqtigii xukuumaddii madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin. xukuumadda Somaliland ayaa maanta xabsiga ka sii deysay 5 nin oo muddo ku dhow 20 sanadood ku xidhnaa xabsiyada kala duwan ee Somaliland waxaanay ku eedeysnaayeen isla markaana loo xukumay inay ku lug lahaayeen falal isugu jira dil iyo argagixiso. Ragga maanta la sii daayay ayaa waxaa ka mid ahaa Jaamac Kuutiye, Indha Cadeeye Ibrahim Idle iyo 2 nin oo kale. Jaamac Kuutiye oo qaar ka mid ah warbaahintu la kulmeen ayaa waxa uu ka cudur daartay inuu ka hadlo sii deyntiisa isagoo sheegay inuu mar kale u dhigan doono hadalkiisa. Raggan maanta la sii daayay ayaa waxa la xidhay waqtigii xukuumaddii madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin.